haddii gasi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay shariif sheekh axmed haliyay mudan in dib loo doorto madaxweynihii hore ee Soomaaliya gudoomiyihii midowga maxaakiimta islaamiga macallin hore oo kamid ahaa macallimiintii hore ee wax ka dhigi jiray magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ahaa gudoomiyihii hore ee midowga maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliya oo haddana u taagan madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan 2021 madaxweynihii hore ee Soomaaliya haliyay mudan in dib loo doorto ayaa hadda waxa uu taagan yahay in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya shariif sheekh axmed oo xukunka ku yimi qori kadib markii uu maxaakiimta islaamiga hogaaminayay ayaa kadibna ka degay oo qalin kaga degay kadib markii uu dawladii Soomaaliya ku meelgaanimada ka saaray uu xilka ku wareejiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane shariif sheekh axmed shariif sheekh axmed oo ah nin ku suntan waxqabad sumcad karaamo karti iyo waliba waxqabad ayaa waxa uu hadda u taagan yahay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya sanadkan 2021 shariif sheekh axmed ayaa waxa dadka qaar ay ku xasuustaan nin dadka aan kala jeclayn musuqmaasuq ka caagan aqoon ayaa hadda markii uu hogaaminayay dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ayaa waxa uu wax ka qabtay dhinacii dhaqaalaha isagoo lacag soo daabacay magaalada ammaankeeda sooy ciidanka sameeyay ayaa waxa dadka qaar ay xustaan nin dabeecad wanaagsan amaanada yaqaana iyo waliba nin dadka aan u kala sugaynin shariif sheekh axmed ayaa inta uu xilka hayay dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxa dadka badankiisu ay ku xasuustaan nin wax qabad ku suntan isagoo intii dawladii federaalka ahayd ee ku meel gaarka ahayd uu hogaaminayay muddadii 3 sano ahayd waxa uu qabtay waxyaalo badan oo ay kamid yihiin inuu u furay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho qayb kamid ah uu weyneeyay iyadoo oo ciidanka uu dhisay ammaan uu ka dhigay magaalada Muqdisho inteeda badan lacagta uu soo daabacay isagoo oo ciidan qarankii ugu horeeyay ka sameeyay Soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa hadda dadka yaqaana waxa ay ku sifeeyaan nin shakhsiyadiisu aad u wanaagsan tahay dadka aan kala jeclaysan waxqabadka uu ballan qaado ka dhabeeya markii uu loo doortay gudoomiyihii midowga maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliya ayaa waxa uu magaalada Muqdisho muddo 6 bilood ah ku soo celiyay inay noqoto ammaan iyo waliba waxqabad 6 bilood kadibna markii uu noqday madaxweynaha Soomaaliya uu ka saaray dawladii ku meel gaarka ah isagoo dawlad rasmi ah ku wareejiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud shariif sheekh axmed ayaa waxa hadda uu taagan yahay madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan 2021 doorashadan lagu ballamay inay dhacdo shariif sheekh axmed ayaa hadda la filayaa in uu noqdo madaxweynaha ugu cadcad ama musharaxiinta ugu cadcad ku guuleysto doorashada Soomaaliya isaga oo madaxweyne Xasan Sheekh markuu xilka ku wareejinayay wareegii labaad ku haray halka madaxweyne Farmaajo uu ku haray wareegii labaad iyadoo haddana la filayo in uu noqdo madaxweynaha xiga ee Soomaaliya la filayo in uu ku soo laabto doorashada sida dadka qaar ay sifaynayaan waa musharax degan akhlaaq diiniyan iyo waliba waxqabad ku sifaysan shariif sheekh axmed هذا سبي يا هوين انت تسرك عين